السلام عليكم أصحابتا سو دوادا جمعة وناكسن دولة إيران وأي كسو جوابتي بقيمه إسرائيل أي حالي لبيكستي وحال أركي بقلال كمدا جنتالة ردادة دير بوليستيكا إن أي كوس سيدي الرابكي أي وسو دين عاصمة ودن كإسرائيل تل أبيب هلع أيا لغا أركي سيدي حالي تهران لغا أركي وكله عاصمة تل أبيب عاو هلع أيا لغا أركي سغال قوبود أو كلا دوان ayaana ay Iiraan gantaaladan ku soo riday ayaan la leeyahay marka sida laga arkayaba hawada wadanka Israa'iil gaar ahaan caasimada Tel Aviv waxa la arkayay gantaalada difaaca Iron Dome-ka oo qaarkood qabanaya gantaaladaasi walow dhamaantood aysan wada qabanin dowladda Israa'iil arrintan waa ay ka sii taxadirtay xaalad degdeg ah oo qaasa waatii Netanyahu wadanka ku soo rogay dadkana waxa la yiri meelaha gabaadka ee dhulka hoostiisa gala cunto iyo biyo ay sii diyaarsadeen isbitaalo sidoo kale waxa jira dhulka hoostiisa ku yaala kuwaasi oo dadka hadii dhaawac u yimaadana haddana waxa la sheegayaa dhowr qof inay dhaawacmeen dhimasho ilaa hadda lama sheegin laakiin gantaalada ballistiga ayaa sidii roobka ugu soo daayay caasimada wadanka Israa'iil ee Tel Aviv holacna waa la arkayay waliba aad u balaaran oo laga arkayay gudaha caasimada wadanka Israa'iil ee Tel Aviv airportkii weynaa ee Ben Gurion waa tii ay Israa'iil xirtay wax diyaarado ka soo degaya iyo wax ka duulayaba aysan jirin hogaamiyaha sare ee ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei waa kii wacad ku maray in jawaab culus oo Israa'iil ay ka shalaysay ay bixin doonaan laakiin jugta gaartay Iiraan ma ahan mid sahal ay uga soo kabsan karto marka la eego goobihii nuclearka ee laga burburiyay iyo saynis yahanadii dhinaca nuclearka oo la dilay taliyaashiis ugu sareysay ciidamada oo la dilay ma ahan jug ay si sahlan uga soo kabsan karto laakiin waxa ay doonaysaa inay aargoosato Iiraan waxay u muuqatay in aysanba u diyaar garoobin weerarka Israa'iil ay ku qaaday laakiin Israa'iil waa ay u sii diyaar garowday jawaabta ka iman karta wadanka Iiraan oo horay ay dhulka hoostiisa u sii galeen oo u diyaar garoobeen isla markaana waxa muuqanaysa hadda Iiraan inay ka soo jawaabtay waxaan ognahay Mareykanka Ingiriiska iyo Kuwait iyo wadamo fara badan inay caawinayaan sidii gantaaladaasi loo qaban lahaa laakiin lama wada qaban karo in badan oo kamid ah ayaa ka soo baxsatay gantaalada difaaca ee Iron Dome-ka iyo waliba Mareykanka iyo wadamadii kale ee reer galbeedka ee Israa'iil caawinayay holac ayaa laga arkayay caasimada Tel Aviv gantaaladuna sidii roobkii ayay ugu soo daayeen qasaaraha ilaa hadda lama uga dhaawac ayaa la sheegayaa dhimasho inay jiri karta waa macquul way arki doonaa waxyaabaha kale ee ka soo kordha laakiin Iiraan argoosigeedii waa ay bilowday